سلامتين دمانتين كعليا تكنولوجيا دو ونظام عصري أدوينها أنا إسكو هذا حري كان دقي ضد قارة كله فوق يو دم كله فوق شوغا إن هو هذا حريران سي ضد طوله وده شوغا قلب كاسمو تكنولوجيا وحكم ذا موبيل ذا لابتوب ذا سوفت ويرسكا يا إنترنت كو قيمته وجوه الرئيسة لما أنت واحد سيدنا موبيلو كوي دمبي أما با سندنا صوبها ما سند كهره سيدا آيفون إكس آيفون إن 7 بلاس يا آيفون 8 بلاس نوت 8 يوحي لمذا أنا جو ملكي لها يماملها جود أهنا أساسها سوق سامي أونلاين وحنوجش على هاي موبيلك سامسونج جالاكسي S3 كاسو ككلياتا قلب لشيء يمكن قلب لشيء إلكترونيكا قرب كي سوقبتي مركل لقي ما قرب قبشة إلهي يسد وكل الدعاء والدك وكمان تهلك أن تاجنا هاي سوق جارسية وحن شري دوري تبنشير مركي الشقدي أنك شقيني قلب كم ذا أنا الشقدي كشر الله بدي يكون يا أفري تبانكي بشي سديدا ويوعي معموله شقدي أنك شقيني ونا إيش هاي إيش قضية أمام مشاريع دي حفيز كتالي إنتي أوغان كشقيناي أي دماتي أي تهاي وأمام الشقدي لا يقف صحيو أنا هيستنى مدة أسبوع كدياتا سيدي أن شقداس أن كجب بيسن لها مو أن كتيجي لها كدي واحد عضي فكر يعلو اليوم أي قلي يمرقو أنا كفكر آيا العكتي عن كوبين لها مبا أن سينشري قيس كيجا kadib waxa dhacday waxa jira hal qof oo la taliyahayga khaaska waxa weeyaan ayeedii hooyo waa qofka koowaad ee la taliya garabkaygana gala markastoon murugaysanahay ayeeyo markii aan u tagay maalinkii labaad waxaan u sheegay ayeeyo xaalad bay la soo gudboonaatay shaqadina waxa la igu yiri waa laga fasaxay hal usbuucna wad haysataa mana garanayo qof qaraabakiil igu geeyay shaqooyinka mana garanahayn qof garabkayga oo la igu ixtiraamayo shaqo weynahay oo la oranayo shirkadahaas markaad uu ku geeyo shaqo ku siinaya maxaan sameeyaa ma garanayaan ku yiri waqti badan kuma qaadan ayeeyo inay iga jawaab celiso cabashadan watay waxa ii sheegtay ayeeyo wiilkaygiyo hal mid ma sameyn kartaa ma sameyn karaysaa waan ogahay inaanay lacag aanad haysanin laakiin ma sameyn kartaa hal wax lacag ka soo galayso si lacag aanay kaaga baxay oo u dhigantaa hodan noqo hanti la'aan waxaan yidhi ayeeyo talo waxaas muxuu noqon doonaa laakiin waan ka fikirayaa hal usbuuc ayaan ka fikirayay halkii usbuuc ma sidaan uga fikiraya waxa igu soo dhacday inaan facebooka aan page ka dhex samaysto aan ku iibiyo alaabaha mustacmalka ee elektrooniga kadib page markaan samaystay waxaan damcay inaan tago meheradaha suuqa ku yaala ee iibiya alaabaha elektrooniga ee mustacmalka laakiin meherad kasta markaan u tago waxa ii sheegtaa ama ay igu yiraahdaan damiinna ma wadatid xafiisna ma lihid midda kale aragtideedu qaabkan maanta u eegahan heer caalamigan aan u eegahay uma neekeen markaas waxa ii sheegaan inaanay alaabtooda igu aamini karin ana waxaan yidhi tugbad hagtii buu rogmadaayay hal mid samee waxaad ku tidhaahdaa sawiraanta alaabtu keliya taan ka qaado kadib sawiraantiina aan ku soo boosti gareeyo Facebook page-ka markaan soo dhigo page-ka dadka iga soo iibsada idinka toos aan idinku keeno waxay yiraahdeen hadday sidaa tahay waa yahay sidaa samee waan sameyn jiray sidii ilaahay baa mahad uga sugnaatay alaabtiisii baa laga iibsanay qof kasto iga iibsadana meheradii alaabtu taale ayaan geenay iyaga oo ma kadib intaa kadib aan ka helayo mushqaayad yar kadib anoo sidaa ku jira ayaa waxa dhacday shaqadii way weynaatay
elektaroonigii kaliya ta ahaa ee dadku arkayeen amaba aan meesha ku iibinayay waxa iga soo raacay amaba ay ii soo jiiday inaan macaamiil badan helo macaamiishaas waxa ugu badnaa waa haween markastana haweenka garab baan u hayaa ayayna koobi ka hayd dhammaantoodna macaamiishada iyagaa ugu badan waxa dhacday macaamiil ka mida macaamiisheeda oo haweenay ah ayaa igu tidhi walaal miyaad samaysid alaabtan elektarooniga oo kaliya miyaad ka daysid meesho alaabaha dumarka miyaad soo gelisid iyo caruurta iyo ragga maad ku soo kordhisid kadib taladii baan qaatay taladii markaan qaatay ayaa waxaan soo geliyey alaab dumarku leeyihiin oo dumarku u khaasa laakiin qof kasta oo arka alaabtaasi wixii odhanayay amaba uu iga toocsanayay uu iga xaraabaysanayay war maanta maxaad bilowday waxaanad bilowday ayagu lahaa alaabtii dhowr usbuuc ay ku jirtay meeshii ugu dambeyn waa la iibsaday taasi waxay horseeday inaan helo macaamiil badan halkaasna ay iga bilaabanto inaan alaab kaste aan soo geliyo beejkaas macaamiil aad u badan baan ku helay suuqina si fiican buu socday online ka ahaa shaqadaasoo dhan waxaan ku qabanayay waxay ahayd dabaq ka mid a dabaqyada magaalada ku yaala oo wiil aan saaxiibnahay ku jiray jaranjaro ka mid ah jaranjarooyinka dabaqaas ayaan fadhiisan jiray kadib jaranjaradaas markaan fadhiisan jiray wiilkii saaxiibka ahayn waxaan ka codsaday inuu internetkiisa ii geliyo moobilkayga estreyga ahaa igana la hadlo amaba ula hadlo waashimaanka meesha ilaalinaya si aanu meeshaasaan fadhiyo aanu iga eriyin aanu ii moodin amaba qof meesha ka tirsan uu garanaya inaanan ahayn laakiin aanu meesha iga eriyin wiilkii saaxiibka ahayn uu igala hadlay qof kastoo jaranjaradaa igu imaada waan soo dejin jiray xafiiskii saaxiibka intaan keeno ayaan ku odhan jiray xafiiska waa kan laakiin alaabtiina waad iska qaadan kartaan alaabtiina waan idinka sawiraya maadaama aan xafiiska lahayn saaxiibkiina aan kula heshiiyey macmiil kastoo imaado inuu meesha yaro fadhiisto laakiin markaan alaabta ka sawiro uu iska noqdo sidii baan muddo samaynayay ilaahay baa mahad uga sugnaatay waxaan sidaa ku socdo oon jaranjaradaa fadhiisto waxaa dhacday wiilka aan saaxiibka ahayn inay dhaqaala darro amaba uu iskaga bixin kari waayo xafiiskii inuu la kulmo dhowr bilood ayaa meeshii uu ku lacagteedii lagu yeesho xafiiskii kadib waxaa lagu yidhi ka bax alaabtana waad kaga tegaysaa ilaa aad lacagta keenaysa wiilkaas saaxiibkan ahayn sidii buu kaga tegay xafiiskii internetkina waa baktiisay ila waaba xafiis xidhanay ninka fooqa ka mas-uulka ah oon is arki jirno oon is-indhagarannay ayaan ka codsaday war walaal waad aragtay inaan halkan xoogaa fadhiisan jiray halkan maan bariiskayga ka dhacsan hal midii samee oo xafiiskii saaxiibaday aan ku shaqaysto ay ogolow wuxuu igu yidhi waan kuu ogolaanayaa laakiin shuruuddaasi waxay tahay inaad albaabka hoosta ka soo xidhatid wixii xafiiskaa ka maqnaadana adigaa lagugu leeyahay inkastoo shuruuddu adkayd maadaama ay tahay inaan albaabka hoosta ka soo xidho macaamiishayda inta ugu badanna ay tahay haween haddana waan ogolaaday waxaan ku yidhi waayahay waan samaynayaa sidii ayaan sameeyey hoostan ka xidhan jiray xafiiska waxa dhacday sidan ugu shaqaysanayay maalin maalmaha ka mid ah ayaa haweeney ayaa ii timid albaabkan furi jiray markuu qof haweeney ahi uu imaado maadaama uu sharciga diinteennu aanu banaynayn laba qof ajnabi inay qol ku wada jiraan kadib waxaan goostay inaan albaabkii ballaqo laakiin nasiib darro waxaa igu soo beegmay ninkii meesha mas-uulka ka ahaa markuu macmiilkii iga baxay uu arkayna albaabkiioo furan ayaa intuu yimid buu yidhi saamiyo ballantii waad ka soo bixi weyday iskaga soo bax xafiiska furayaashana keen laakiin waan u cudur daartay waxaan ku yidhi hawshaas laba daro mid dooray noqotay laakiin tii adiga ahayn maan doortay tii kale sharciga diinta ka soo horjeeday waan iska diiday wuxuu yidhi ma sidaas ahaa mar dambe yaanan kugu arkin inay dhacdo albaabkaasoo furan haddii kale dabaddaa tahay waayahay baan ku yidhi sidii baan kaga qaatay furayaashii mar kale waxa dhacday maalin ka mid ah haddana maalmaha ayaa macaamiil badan iyagii ila joogaan oo albaabkuna furan yahay 7 macmiil meelahaas oo albaabkuna ii furan yahay oo qaarna wax iibinayaan qaarna iibsanayeen
ayuu sidii si leeg u meeshii soo koray dabaqii uu arkay albaabkii oo furan laakiin maalintaas sidii horoo kale ima odhanin sidii macaamiishoo kale macaamiishuna waxay moodayeen qof macmiilka macaamiisha ka mid ah uu soo ag fadhiistay kadib markii macaamiishii iga wada baxday ayuu wuxuu yidhi waa niya husaamiyow macaamiishan haddaad haysatid dabadeed waxaan ku yidhi waa niyaho haddaan kiraysto amaan iska bixin kari waayaa maadaama oo aan $0.5 waxa ugu badan $2 waxa aan faa'iidayo wuxuu igu yidhi bisha koowaad free baan kaaga dhigayaa laakiin bisha labaad lacagtii waad bixinaysaa waxaan ku yidhi waa yahay kadib waxaa dhacday habeenkii inaan gurigeygii la tegey farxad ah inaan maanta xafiisan kiraystay iskii aan hoosta ka soo xidhan jiray uu berri toolanay ii ballaqnaan doono subaxii habeenkii si farxadlaan ku seexday isla habeennimadii anoo seexanin ka hor waxay soo wacay wiilashii lahaa alaabta xafiiska taala ee markii hore lacagta loogaga xanibay waxay ii sheegeen alaabtooda inay soo doonanayaan berri toole lacagtina ay bixin doonaan waxaan ka codsaday inay ii daayaan alaabtooda muddo bil ah maadaama aanan haysan alaab aan xafiiskana kiraystay waxay idhaahdeen maya alaabteeda waan qaadanaynaa subaxii xafiiskayga waxaan ku soo kallahay xafiiskayga oo madhan waxaan dhex fadhiistay xafiiska oo madhan kadib maa niyad xumaanin intan meesha ka soo baxay tugba taagtii buu rogmadaabay tidhaahdaa soomaalidu ayaa bakhaar ka mida bakhaarada ku xiga xafiiska intan tegey ayaan ka codsaday inuu isiiyo kartoon si aan ugu fadhiisto aan uga dhigto waxaan ku fadhiisto boodhka iskaga celiyo maalintaas may jirin maalin aan ka niyad wanaagsanaa aanan kaga kalsoonaa waxaan wado inay meel gaadhayaan kadib sidaa waxaan ugu fadhiyey muddo laakiin waxay gashay inaan aado labada shirkadood ee deymaha dhaqaaleed bixiya ee dalka ku yaala labadoodii markaan aaday labadoodii waxay igu jawaabeen waxyaabaha ay iga baahan yihiin maadaama lacagtay ay doonayaan kursiga miiskan uga baahnaya kombyuutarka aanay iibin karayn kadib waxaan ku yidhi ma sidaasaa haabay yidhaahdeen naga raali noqo waan iskaga soo baxay maa niyad jabin waxaan yidhi tii ilaahay baa meesha taallaa si ha isku dayin inaad niyaddu kaa dhimato amaba aad samaysid wax ka mid a waxa qayrkaa samaynayaan oo inaad dalkaaga ka tahriibtid amaba meel kale amaba waxaan aad wadid aad ka niyad jabtid waxaan $1 iyo $0.5 iyo waxaan faa'iidayo oo mushqaayad ahayd aan isku korkordhiyo muddo ku siman 5 bilood iyo badh ayaa waxaan ku fadhiyey kartoonkaas qof kastoo ka ii imaada oo macaamiisheeda ka mid ahayna wuxuu arki jiray xafiis kuraas iyo miisi taalo markuu yidhaahdo alaabtii aaway waxaan u sheegi jiray alaabtii hore way cascaseed oo alaab cas bay ahayd laakiin xafiisku alaab cadcad baa loo soo iibinayaa dhammaanteed kadib waxaan sidaa idhaahdo aan saa uga sheekeeyaba $0.5 wixii aan helayaan isku ururiyo waxaa dhacday inaan miis iyo kursi aan dhigto xafiiskii miiskii iyo kursigaan xafiiska dhiganayay xafiiska wuxuu noqday kursi iyo miis wuxuuna noqday xafiis u eg wax xafiis u eg oo iminka lagu soo hiran karo kadib waxaa dhacday inaan alaabaha ama waxyaabahan samaynayno waxaa ka mid tahay amaba aan ku iibinayno meesha waxa weeyaan online caqabado badan way iska jiraan maadaama ay caqabado jiraan oon qof kastoo aan idhaahno alaabtaas ama waxyaabahaasaan idiin iibinayna aan waxaan hore u arkin wuxuu nagu sheegi jiraa amaba odhan jiray waniyo dalkiini ma joogtaan maxaase u samaynaysaa anagu laakiin waxaan ugu jawaabaynay waxay ahayd inaan waxaan qof kastoo waxaan bilaabay uu maalin uu meel sare gaadhay kuwa meel gaadhayna aanu maalintaa dalkoodii aanay waxaas ka jirin maanta waxaanu leenahay shaqaale hargeysa waxaa ka shaqeeya shaqaale ku dhow 7 qof oy ka mid yihiin 3 ka midii ay halkaa ka muuqdaan
waxaan leenahay sidoo kale in muqdisho waxaan ku leenahay xafiis hargeysa waxaan ku leenahay xafiis garowana xafiis dhammaantoodna waxaan ka shaqeeyaa aan u xulshay amaba aan u xulanay inay karti leeyihiin aanan uga soo jiidinay dadka kale si ay meeshan aanu taaganahay oo kale amaba aanay niyaddu uga dhimanin oy ku fikiraan inay maanta meel fiican oo rajo leh ay ku nool yihiin dalkooduna rajo weyne ka soo muuqato waxaanu leenahay gawaadhi alaabta qaada oo u kala geysa dadka alaabaha iibsada oo delivery lagu qaado waxaanu isla sanadkii hore ee 2017 aan iibinay alaab ku dhow 16,655 alaabood ay shalay toban maris alaabtan iibinay sanadkii hore kaliya hata adduunyada sideeduba dal kasta wuxuu leeyahay cid ku faano qaarad kastaana waxay leedahay cid ku faanto China marka laga hadlayo amaba Aasiya waxay ku faanaan Alibaba eBay Amazon waxa ku faanaa reer galbeed oo idil guud ahaan dalkeena iyo shacabkeenu waxaan rajaynayaa inuu ku faano oo yiraahdaan waxaan leenahay saama online dadiyowga dunida joogaana ay nagu amaanana yiraahdaan dalkaasi iyo dadkaasi waxay leeyihiin saama online oo wayna la dhigayaan waad mahadsantihiin dhammaantiin